sida horay bay sheegay walaalkaan xildhibaan maxamed kerow wali intaa deeray wafdi oo maanaa heer xildhibaan iyo heer wasiir iyo heer dhaqan oo koray malaaka guud meesha hareegana isku jiran yahana deereen sida maanaa arday xildhibaanka boqortaagan sheegay waliba mayda rays yahana deeray odayaalkasi oo nooc walbana isku jiran wali la qaadanay nabadgelyada oo haqaadana la qaadani insha allahu inta kala dhimagna mayda rays farsamo iyo daadiin badan yaa arday dhimanaada doona jeedana mayda rays guddi farsamo yalan saara doona insha allahu wali doorkan iyo unka aadan arday garab surma doogna guud ahaan adduunyada ama mayda rays dadka kale walaalaha dareenka niila haddii dalkun roogan iyo haddii dibadda jaranba wali sheegana in mana arday hareen arday midaysanyi in hareen mayda rays meel allaala meelkiisan araga danooji gaarka iyo han guudka ban araga eelkii madaasun araga mana arday eelkum arsan er iskul waraaba doona dadka reer baadiyada gordaan eela baa lagu hoola madil iroori mana arday weed guriyaya eel mana arday hoolan weed guriyo arday mana saani doon saan maleew wala ka talada doonu guudaan unun wali arday saqaadanayni mar arday hal meel isku wada jeesado doon wali kala farsamo oo mana technical mana arday dhimayin saafada mariyana wali dhaafo doona mana guddigaasi oo farsamada mana arday la magacaabo doona insha Allah yoon ku wada shaqeeyo doon marka insha Allah dadkii gulgulaayeen si guuda isigaara gulgulaayeen wali ogaadeen mana arday intii arday nibadgeli arday idna duulaan kahayn dawladna duulaan kahayn sheer goone horeer koonfur galbeed duulaan kahayn haddii nahna weeraro nana gardareysada langna galnyamadaas marka laabadaan laakiin wali ogaada sana reer south west ama reer koonfur galbeed ini maana arday hareen arday dhaqanka iyo xildhibaanintiis iyo siyaasiintiis iyo istiqaadadan nabad iyada ogaadasan warkan intaa ka gaabiye hada wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu